بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد ولا ليال ولي وحا إنو سعودة دروستيني تحنها أهيد كتابكني صحيح صفة صلاة النبي waxaana darsigeenu noo marahayay aayadihii bilowgeedu uu ahaa fatawakal cala allahi innaka cala alxaqi almubiin ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam fatawakal cala allah ilaahay tala saaro nabi allow maxaa yeelay innaka cala alxaq waxaad ku sugan tahay xaq xaqaasoo almubiini ee cad qofku hadduu xaq haysto waxaa loo baahan yahay inuu alla ku kalsoon yahay athiqatu billaah inuu haysto kalsooni alle waa inuu haysto inuu walaaco inuu walwalo inuu walbahaaro oo dadka fusaaqda iyo dadka fujaarta ah iyo mubtadicada inuu maaragtaahay ay welwelgeliyaan ma aha qofku hadduuba xaq uu ku sugan yahay waxaa la doonay athabaat cala alcaqiida asaxiixa waatawakul cala allah innaka adiga laa tusmicu ma maqashiin kartid almowta wax dhintay macnaha gaaladu waa wax dhintay oo kale ruux hadduu dhinto haddaad tidhaha inakeen aan baxne muxuu ku maqli walaa tusmicu waxna ma maqashiin kartid assumma kuwa dhegala adducaa'a u yeeridda ma maqashiin kartid ilaahay wuxuu nabigiisa ku leeyahy sala allahu calayhi wasalam isagoo nabigiisa u tilmaamahaya gaaladan madax adaygooda kuwa dhegala haddaad u yeerto oo tidhaahid kaalayoy war kaalayoy kuma maqlahayaan gaaladuna waa sidaas oo kale idaa wakhtigii ma maqashiin kartid wallow ay sii jeestaan mudbiriina xaalayhin kuwa daba jeediyey dad dhagoolayaal ah oo haddana kaa sii jeestay war kaalayow war soo jeesow ma maqlahaya walba hadduu kuu soo jeedo moogtaa dhagoolaha gacantaad kala hadashaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahy dhagoole kaa sii jeestay haddaad u yeerto oo tidhaaho kaalayo waxbaan kuu sheegaya kuma maqlahayo dadkan kufaarta ee gaaladuna waa sidaas oo kale ayaa ilahay leeyahy subxaanah wamaa anta adigu ma tihid nabiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam bihaadi lcumyi kuwa indhala mid hanuunin kara can dalaalatihim bacda dalaalatihim lumiddooda ka bacdi mid hanuunin kara ma tihid waxaa kaloo gaalada ilaahay uu ku shabbahay subxaanahu wa tacaalaa iyo ruux walba oo xaqdoon aan ahayn yaa iyo ruux walba oo aan xaqdoon ahayn macnaha adiga dad indhala ma hanuunin kartid baa la yidhi marba hadday baadiyoobaan dadka indhahala hadday baadiyoobaan ma hanuunin kartid macnaha ruux indhala haddaad hadda tilmaan aad siiso oo tidhaaho xaafaddaa ka bax geedka meeshaa ka yaalla markaad aragto ka leexo geedkaas markaad ka leexatid waddada haddana xagga kaa qabanaysa mar afar geedaad arki doontaa ee afartaa geed dhexdooda mar muxuu arkahayaa geeda iyo waxaad u tilmaamayso tilmaantaada dhan kuma socoto maxaa yeele waxba uma jeedo qofka hadduusan xaqdoon ahaynna sidaas oo kale in tusmicu adigu ma maqashiin kartid nabiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam ilaa man qof maahane qofkaasoo yu'minu biaayaatina aayadaheenna rumaysan dadka aayadaheenna rumaysan uunbaa wax kaa maqla oo fahum ayagu muslimuuna hoggaansan dad aayadaheenna inta dhegaystay haddana hoggaansan dadkaas way dadkaad wax u sheegi karto wa idaa waqaca alqowlu hadalku hadduu dhaco hadalkii oo qiyaamaha la ballan qaaday dhiciddiisii markuu dhaco calayhim dadka korkooda uu ku dhaco akhrajnaa lahum dadka waxaan u soo saarnaa daabatan daabad ayaannu min alardi ardada xaggeeda uga soo saarnaa daabaddaasoo tukallimuhum la hadasha daabad magaceeda la yidhaha jasaasa ayaa maalinta qiyaamaha ilaahay uu soo saaraa oo ruux walba oo ahlu naara ku calaamaynaysa inuu ahlu naar yahay lianna naasa dadku maxaa yeelay kaanuu waxay ahaan jireen laa yuuqinuuna biaayaatina aayadaheenna kuwa aan yaqiinin ayay ahaan jireen wa yowma maalin xasuusta naxshuru aannu shirin doonno min kulli ummatin ummad kasta fawjan horin aan ka shirin doonno waxaad xasuusataan maalinta ummad kasta horin aan u shirin doonno horintii faasiqiinta horintii gaalada horintii mu'miniinta horintii shuhadada horin dadka loo shirin doono
fawjkaasoo miman duul ka mida yukadibu biaayaatina aayadaheenna rumeeyey ummad kasta horintii ahlu naarka ahaa oo miman ka mida mankaasoo yukadibu biaayaatina aayadaheenna beeniyey ummad kasta horintii aayadaheenna beenisay ayaannu meel ku shirinaynaa fa hum ayaga yuusacuuna waa kuwa la horo si ay maaragtaahay isu soo gaaraan meel naarta afkeeda ah oo naarta u dhow ayaa la leeyahay isku suga inta kuwaas la soo xisaabinayo suga halkaasaa lagu horaa markay soo wada dhammaadaan markaasaa la leeyahay gal hadda naarta xataa idaa jaa'uu markay yimaadaan dadkaas qiyaamaha qaala ilaahay wuxuu yidhi akadabtum biaayaati aayadahaygii miyaad beeniseen walxaal lam tuxiiduu aadnaan koobin cilman ogaal biha aayadahaas aad ogaataan war aayadahaygii miyaad iska beeniseen adinka oon ka warqabin aayadahaasi waxay ka hadlahayaan iyo waxay ka sheekaynayaan maxaa yeele shayga waxaa la rabaa bal marka hore dhegayso faham ogaaw markaa kabacdi ama rumay ama beeni laakiin gaaladu waxay samayn jireen aayadaas soo degtay markay maqlaanba waa ka carari jireen meesha iyo goobta qur-aanka lagu akhrinayo dhanba maba dhegaysan jirin mana fahmi jirin ilaahay marka wuxuu ku eedaynaa subxaanahu wa tacaala uu leeyahay war aayadahayga ma iska beeninaysaan horta adinkoon ogaanba bal waxay ka hadlayso aayadda bal horta ogaada am maadaa maxaybaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan wa waqaca alqowlu hadalkii xaqa ahaa ayaa calayhim korkooda ku dhaca kuwaas xaqa diiday bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigooda sababkiis ayaa qowlkii xaqa ahaa ugu dhacay qowlkii xaqa ahay oo ah in loo ballan qaaday in hadday beeniyaan aayaadka ay naarta gelayaan qowlkaasaa ku dhacay qowlkaasina wuxuu u dhacay gardarro maahane iyaga ayaa dulmi sameeyey fa hum iyagii laa yandiquuna ma dhawaaqi karaan oo macnaha cudurdaar inay bixiyaan waxyaalaha ku kallifay inay xaqa ka hor yimaadaan inay cudurdaar ka bixiyaan loo fasixi maayo mana loo idmaayo walaa yu'danu lahum fayactadiruun waa ka meel kale ilaahay ku yidhi loo idmi maayo inay ka cudurdaartaan waxyaalihii ku kallifay inay xaqa ka hor yimaadaan wayaxdurunaa hadda annaga waxaa xaadir noo ah min alkalaami hadalka xaggiisa waxaa nooga xaadira hadalkaasoo almutaqadimi ee soo hormaray ciddatu umuurin dhowr arrimood ayaa xaadir nooga ah hadalladii aan soo hormarinnay haddaannu soo khulaasayno ama aannu soo saafigarayno waxaa nooga soo saafigaroobay dhowr arrimood arrimahaasoo yembaqii uu habboon yahay an nunabbiha calayha cala alumuur arrimaha inaannu dadka ku baraarujinno awalan arrinka ugu horreeyaa wuxuu yahay wujuubu dalabi alcilmi cilmiga raadintaa wujuubkeeda cilmiga inaad raadiso ood u hayaanto ood u boqoosho inay waajib kugu tahay ood u gaajooto u rafaaddo u lugayso inay waajib tahay iyo walmas'uuliyatu mas-uuliyaddaasoo alcadiimatu weyn mas-uuliyaddaasoo almadluubatu ee laga dalbanayo min alculamaa culimmada arrinkan ugu horreeya waxaannu ka hadlaynaa cilmiga in loo boqoolo oo la raadiyo inuu waajib yahay iyo mas-uuliyadda weyn ee culimmada ka saaran faafinta cilmiga yajibu cala almuslimiina muslimiinta korkooda waxaa waajib ku ah jamiican dhammaan xaalayhiin muslimiintu an yascaw inay socdaan bikulli jiddiyatin dadaal kasta ilaa tafkiihi anfusihim nafafyaalkooda inay wax fahamsiiyaan inay ku dadaalaan wa tacallumi umuuri diinihim diintooda arrimaha barashadeeda ay u socdaan muslimiinta dhan waxaa laga doonaya inay u socdaalaan siday naftooda wax u bari lahaayeen diintan ay u fahmi lahaayeen kamaa sidii yajibu calayhi muslimiinta ay waajib ugu tahay an yusaahimuu inay ka qayb qaataan fii nashri alcilmi cilmiga baahintiisa waxaa kaloo muslimiinta waajib ku ah inay ka qayb qaataan faafinta iyo baahinta cilmiga wa an yatacaawanuu inay muslimiintu isugu kaalmaystaan calaa tabliiqihi cilmiga gaarsiintiisa iyo wa isaalihi cilmiga gaarsiintiisa ilaa kulli makaan boos kasta la gaarsiiyo waxaa kaloo muslimiinta la gudboon in ay mar walbaba isaga kaalmaystaan oy ku tacaawunaan sidii cilmiga loo faafin lahaa gobol walba iyo goob walba iyo tuulo walba in la gaarsiiyo cilmiga waddariiqu ilaa taxqiiqi daalik cilmigaas gaarsiintiisa oo la xaqiijiyo waddariiqu waddada dariiqaasoo almuusilu gaarsiinaya ilaa taxqiiqi daalika cilmigaas in la xaqiijiyo waddada ugu habboon oo dadka cilmiga lagu gaarsiin karo
an yacqiduu dadku waa inay xidhaan majaalisa fadhiyo fadhiyadaasoo yowmiyatan ee maalin kasta loo nisbeeyey oo usbuuciyatan ama usbuuc kasta loo nisbeeyey filmasaajidi masaajidda waa inay fadhiyadaa ku xidhaan walbuyuuti guryahana waa inay fadhiyadaa ku xidhaan macnaha dadka waxay cilmiga ay adduunka ku gaarsiin karaan fadhiyo oo maalin kasta ah ama usbuuc kasta ah inay masaajidda ay ka qabtaan iyo walbuyuuti guryahana ay fadhiya ku qabtaan fadhiyadaasoo waxay u qabanayaan liqiraa'ati kutubi alcilmi liajli qiraa'ati kutubi alcilmi kutubta cilmiga akhrinteeda darteedna fadhiyadaas ay u xidhaan waxaa la rabaa guryaha iyo masaajidda guri walba iyo masjid walba in fadhiyo maalin kasta ah ama usbuuciiba mar ah in laga qabto oo lagu faafinayo kutubta cilmiga waa khusu waan gaar yeelaa khaasatan si gaar ah cilma tawxiid gaar ahaan waxaan si gaara dadka muslimiinta ugala dardaarmi inay cilmiga tawxiidka ay faafiyaan cilmiga tawxiidka oo loola jeedo caqiidada laga dhaxlay asalaf الsaalix iyo walfiqha fiqhiga axkaamta iyo walxadiida xadiiska nabiga salى اllahu عalayhi wasalam iyo wasiirata siiradaasoo annabawiyata ee nabiga loo aaneeyey culumtaas in aad loogu dadaalo wa an yusaahimuu inay dadku ka qayb qaataan oo wayascow bijiddin si dadaala iyo wa ikhlaasin si saafigarayna ay ugu socdaan fii dabaacati alkutubi kutubta daabiciddooda kutubtaasoo annaaficati ee muslimiinta anfacda weliba si gaara dadka gaar ahaan xoolaha heesta inay ka qayb qaataan kutubta cilmiga ee ummadda anfacaysa sidii loo daabici lahaa allatii kutubtaasoo tufaqihu lmuslima qofka muslimka fahamsiinaysa biumuuri diinihi diinkiisa arrimihiisa fahamsiinaysa qofka muslimka ah wa cala alculamaa'i culimmada dushooda waxaa ah iyo wa khudabaa'i almasaajidi masaajidda kuwa ka khudbeeya iyo culimmada dushooda waxaa ah an yufaqihu nnaasa dadka inay fahamsiiyaan fii umuuri diinihim diintooda arrimaheeda inay dadka fahamsiiyaan waxaa laga rabaa dadka masaajidda ka khudbeeya iyo guud ahaan culimmadaba in ay dadka ka dhaadhacsiiyaan oy fahamsiiyaan arrimaha diinta fa yajibu waxaa waajibaya an yucallimuuhum dadka inay baraan altawxiida waalcaqaa'ida tawxiidka iyo caqiidooyinka iyo wa axkaama tahaara dahaarada axkaamteeda iyo wa axkaama asalaa salaadda axkaamteeda wa axkaama asiyaami wazakaa soomka iyo zakada axkaamtooda biusluubin nidaamna ay dadka ku baraan usluubkaasoo yatanaasabu munaasib u ah oo u qaabsan maca ahli haada kan ahalkiisa u qaabsan kaasoo alcasri casriga ah xilligan hadda aanu ku jirno ereyo munaasib u ah iyo nidaam munaasib u ah casriga waa in dadka wax loogu sheego usluubkaasoo baciidin fog cani tacqiidi xirxirid hadalka la xirxiro ka fog weliba usluubka dadka wax loogu sheegaayo waxaa la rabaa hadal fasaaxo leh ee bayaan leh oo wax gunguntan oo isku xirxiran oo macnihiisa aan la fahmi karin uusan ahayn in dadka wax loogu gudbiyo laa siyamaa mahalba ma laha walxaal annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana nabigu uu ahaa yucallimu nnaasa dadka inuu wax bari jiray cala mimbar kursiga korkiisa asagoo ku fadhiya ama ku taagan ayuu dadka wax ka bari jiray umuura diinihim dadka diintooda arrimahooda ayuu mimbarka korkiisa ka bari jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam allatii arrimahaasoo min ahamihaa kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay asalaa arrimaha kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay salaadda ayuu mimbarka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka uu ka bari jiray lianna haadihi maxaa yeelay middan taasoo alkhudaba khudbooyinka ah khudbooyinkaasoo arrannaanata ee haaridda badan khudbooyinka haarayso macnaha layska dhigdhigaayo khudbo macaan oo fasaaxale layska keenkeenayo khudbooyinkaasoo alxamaasiyata ee xamaasadda loo nisbeeyo dadka lagu kicinayo shabaabka dhallinyarada khudbooyinkaasoo almashhuurata alyowma maanta la shuhreeyey oo meel walba lagu qabto ahbata alwaaqicu waaqica dhacay wuxuu sugay cadama jadwaaha khudbooyinkaas iyo muxaadaraadkaas faa'iidada la'aanteeda ayuu sugay waaqicu
waxaa tajribe ahaan lagu ogaaday muxaadarooyin xamaasiye ahee rannaano ah iyo khudbooyin shabaabka kiciya in faa'iido weyn ee sidaasa ahamiyad weyn aysan u lahayn qofka barashadiisa diintiisa kaliya loogu tala galay qofa in xoogaa xamaasad diineed ay ku abuurto bis laakiin waxaa dhici karta qofkii xamaasad diineed inuu ay ku dhacday maca annahu laa yacrif axkaama طahaara wa axkaama alistinjaa wamaa ilaa dalik xamaasad diineedaa iska haysa laakiin maca daalika ma garanayo axkaamtii dahaarada iyo axkaamtiisii diinta kulli waxba kama fahmayo mana garanayo fasarcaana maa wakti ayaa degdegaya yazuulu ta'hiiruhaa khudbooyinkaas saameyntoodu ou zuulaayo macnaa xilli degdeg ah ayaa khudbooyinkaas ay ku dhammaanayaan oo wax saamayn aysan lahayn maca anna almuslima ayay ku zuulayaan qofka muslimkaa muslimkaasoo alyowma maanta ahaaday bixaajatin baahi inuu ku sugan yahay baahidaasoo maasatin taabanaysa baahi ayaa dadka muslimiinta maanta taabanaysa oo ay ku sugan yihiin ila tafaquhi fahmidda diinta ay muslimiintu maanta u baahan yihiin wa tabasuri ogaashada ay u baahan yihiin fii umuuri diinihi diinkiisa arrimihiisa qofka muslimku uu ogaado haddana qof kastee muslima maanta wuxuu uu baahi weyn uu qabaa inuu diinta ogaado oo diinta wax uu ka fahmo wa huwa qofka muslimka ah mutacadishun lidalik diinkaas mid uu ooman aad wuxuu ugu ooman yahay siduu diinta ugu fahmi lahaa ثaaniyan arrinka labaad oo aanu ka hadlayno waxaa weeye khuduuraة اlاbticaadi can اlcilmi ka fogaashada cilmiga laga fogaado khatarnimadeeda bixujati xujo ahaan looga fogaado haadihi umuurun khilaafiya wاlأwlى اlاbticaad iyadoo xujo laga dhiganayo haadihi tani umuurun waa arrimahaasoo khilaafiyatan ee khilaaf loo nisbeeyey walowlaa midka habboona alibticaadu ka fogaasho wey macnaha khatarta ay leedahay xujada beenbeenta ah oo dadka reer magaalka u badani gaar ahaan ay samaysteen oo ay leeyihiin cilmiga dhan wuxuu ku dhisan yahay arrimo khilaafi ah waxaana fiican khilaafka in laga fogaado manhaajkii waxaa ku qoran waqiila kada waqiila kada waqiila kada qultu kada waxaas khilaafka ah ayaa cilmiga dhani ku dhisan yahay saas awgeed waxaaba ka fiicanba cilmiga dhanba maadaama culimmadu ay isku khilaafeen oo waqiila ay meeshii taallo in layska fogaado o layska noolaado haa waa shaqal macnaha shaqo hermagaalku ay u badan yihiin dadka ganacsatada iyo dadka hermagaalka iska dhigdhiga iyo waxaasaa macnaha xujadaas beenbeenta ah ayay cilmigii iyo xalaqaadkii culimmada ka fogeyday wa min alumuuri arrimaha waxaa ka mid ah arrimahaasoo alkhadiirati khatarta leh jiddan min jiddin si daran arrimaha khatarta u leh waxaa ka mid ah allatii arrimahaasoo nasharaha ay faafiyeen acdaa'u lislaami cadowiyaalka islaamka dadka cadowga u ah ay faafiyeen alyowma maanta ay faafiyeen waljihaatu jihooyinku ay faafiyeen jihooyinkaasoo almukhadadatu loo xariiqay lil isticmaari gumaysiga loo xariiqay gumaysigaasoo alfikriyi ee maskaxda loo nisbeeyey waa gumaysi xagga maskaxda qofkaasi waxa weeye maskax ahaan ayaa laga gumaystay qofka la yidhi cilmigu khilaafuu ku dhisan yahay ka fogow waa isticmaar xagga maskaxda ah maskaxdaa laga haystaa licuquuli shabaabi almuslimiin muslimiinta dhallinyaradooda caqliyaalkoodana lagu gumaysanayo dadka dhallinyarada caqligooda lagu gumaysanayo waxaa ka mid ah ashicaaru halkudhigga alladii halkudhiggaasoo in khadaca bihi halkudhiggaas ay ku sirmeen ama ay ku dhagarmeen bacdu sudaji kuwa caqliga fudud qaarkood ay ku dagmeen halkudhigga dadka qaar ay ku dagmeen ayaa ka mid a waxyaalaha cadowga islaamka uu faafiyey bal iska dhaafay watabannaahu shicaarkaas ay ka wiil dhigteen bacdu man duul qaarkood duulkaasoo yaddaci ilcilma cilmiga sheeganaya dad xataa cilmi sheeganaya arrinkaas waxay ka dhigteen xujadaas beenbeenta ah sidii wax cunug oo kale loo koolkooliyo ay u koolkoolinayaan iyo walmacrifata macrifo sheeganaya halkudhiggaasoo annaasu caddaynaya calaa anna almasaa'ila masaa'ilkaasoo asharciyata ee sharciga loo nisbeeyey iyo walishtigaala isku howlid bitacallumihaa masaa'ilka barashadooda laysku howlo
wa tacliimihaa dadka baridooda masaa'ilkaas la baro laysku howlo wannadari fiirfiirinna laysku howlo fii adilatihaa masaa'ilka adiladeeda la fiirfiiriyo laysku howlo umuurun arrimo inay tahay arrimahaasoo khilaafiyatun ee khilaaf loo nisbeeyey arrimahaasoo yajibu alibticaadu ka fogaashadu ay waajib tahay canhaa arrimahaas xaggooda laga fogaado macnaha dadka qaara waxay ku leeyihiin war waxaan diintan waa laysku haysaystaa oo diintan waa laysku khilaafsan yahayoo iyadan dhanba ka fogaw ayay ku leeyihiin wa xaqiiqatu haadihi tan xaqiiqadeeda taasoo addacwa sheegashada ah dacwadaasoo alkhadiirati ee khatarta ah tadcuu waxay ugu yeereen dacwadan khatarta ah dadka ila alibticaadi ka fogaasho can culuumi alislaami islaamka culumtiisa laga fogaado waljahliyay ugu yeeri bihaa culumta islaamka jaahil laga noqdo halku dhigan khatarta leh dadka wuxuu ugu yeeri in dadka dhani jaahiliin ay noqdaan oo wax goobihii cilmiga isugu yimaadaba la waayo liijaadi muslimin muslim si loo ehaysiiyo darteed loo jaahil noqdo muslimkaasoo bilaa hawiyatin dan la'aan ah waxaa soo baxayoo la rabaa in la abuuro muslim dan la'aanah oo diintiisa aan waxba ka danaynaynin muslimkaasoo faariqin ee cidlo ah oo qalbigiisu cidlo yahayoo wax cilmiya uusan ku jirin wa jaahilin biaxkaami diinih diinkiisa axkaamteedana jaahil ka ah baxaydu meel muslimkaas la iijaadiyo laa yastadiicu uusan awood u lahayn an yafcala shay-an inuu wax sameeyo hal mas'alo diiniya uusan ka jawaabi karin muslim saasaa waxaa la rabaa in maaragtaa maantay la ahaysiiyo walaa an yugayira inuu wax ka bedelo waaqica mujtamacih bulshadaas waxa ku dhacay waaqica ku dhacayoo heesta inuu wax ka beddelaan aan awood u lahayn liannahu yajhalu wuxuu jaahil ka yahay xukma sharci sharciga xukumkiisa ayuu jaahil ku yahay sharcigaasoo maya fiihi mujtamaca dhexdiisa xaal xukumka sharcigu u ahaaday macnaha bulshadan xugum ahaan siduu wax ugu sheegi lahaa ayuu jaahil ka yahay markaasuusan bulsho wacdi karin markaasuusan qof wax u sheegi karin qof saasaa waxaa la rabaa in maaragtaahay adduunka lagu abuuro wayadcuu haadaa kani wuxuu ugu yeeraa kaasoo ashcaaru halkudhigga ah oo la leeyahay cilmiga dhan waa laysku khilaafsan yahay ha laga fogaado biikhtisaarin soo gaabin wuxuu dadka ugu yeeraa ila alibticaadi ka fogaasho can culuumi alislaam culumta islaamka o dhan ba laga fogaado saasay keeni wayadcuu bitaali midka la xidhiira wuxuu kaluu ugu yeeraa haddii arrin kale lala xidhiiriyo can alislaami macnaa alibticaada ayuu ugu yeeri can alislaami islaamka laga fogaado bidariiqin dariiq waddo looga fogaado islaamka ow biaakhara ama waddo kale looga fogaado islaamka dariiqaas halkudhigga ah oo cilmigu waa arrimo khilaafiya ha laga fogaado ah ama dariiq kaleoo qofka lagu dagaayo cilmiga in looga fogeeyo weeye uun halkudhiggaas waxa ka dambeeya wa haadaa arrinkani huwa khilaafu maameladii kii khilaafkiisu wey kaana calayhi maaga korkiisa asaxaabatu saxaabadu ay ahaan jireen saxaabadaasoo alkiraama ee wanwanaagsan radia allaahu canhum saxaabada dhaqankoodii taasi waa ka soo horjeedaa iyo waman duulkaasoo bacdahum saxaabada ka dambeeyey oo mina taabiciina taabiciintii ah alladiina taabiciintaasoo qaala fiihim taabiciinta dhexdooda sayidunaa rasuulullaahi sayidkeenna rasuulka ilaahay uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam khayrukum waxaa idinkugu khayr badan qarnigayga aniga hadda aan noolahay oon ku guda jiro boqolkaygan ayaa idinkugu khayr badan uma aladiina kuwii ayaa ku xiga yaluunahum ayaga la xidhiira uma aladiina kuwii haddana ku xiga yaluunahum ayaga la sii xidhiira saddexdaas qarni ayaa ummaddayda ugu fadliga badan rawaahu xadiiskaas albukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa xadiiskaas wariyey marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadkii uu ammaanay oo uu yidhi qarnigayga ugu khayr badan oo saxaabadii ah cilmiga way baran jireen goobaha nabigu uu fadhiyo sala allahu calayhi wasalam ayay laasimi jireen markaasay axaadiista qur'aanka xigmadaha waxyaalaha ka burqanaya nuurka iyo afka nabigeenna sharafta badan sala allahu calayhi wasalam ayay ka soo qaadan jireen faman qallaba qofkii gedgediya musanaf alxaafidi cabdirasaaq alxaafid cabdirasaaq
kitaabkiisa musanafka la yidhaha qofkii warqadihiisa gedgediya oo musanaf alxaafid ibni abi shayba ama sheekhii xaafidka ahaa kitaabkiisii musanafka ahaa gedgediya warqadihiisa raximahum allahu tacaala allah u naxariistee wajada wuxuu helaa آلاف المسائل كمنان مسائله كهلا كتبتاس مسائل كاسو الفقهية فقهية والشرعية شرع اللون نسبي التي مسائل كاسو اختلف فيها الصحابة مسائل كصحابة أي اسكو خلافين كمنان مسائله وحوهلي صحابة أي اسكو خلافين وتابعون تابعين تين أي اسكو خلافين وهم صحابتنا أئمة أهل الهدى هنونك أهل كيسة أهلكاس كوي هجامين قفكي مصنف عبد الرزاق iyo مصنف الحافظ ابن أبي شيبة ورقده هذا قدية وحواركا كمنان مسائلة أو يسكو خلافين تابعينتي أما صحابة يسكو خلافين مركا خلاف كاسنا من نتيجين إن علمي جدا لقسي جيستو ولا يراهو وروا الله يسكو خلافين نقد أي علمي لما أرن وقد حقيقة خاضوا ويد دباشين فيها مسائل كاس صحابته ودرس كل مدل البنوات دراسي كاسوا منهم صحابة كمدة تلك تاس أيو دراسي كاسوا المسائل مسائل كاه نول بسحابي مسائل كإذا أوجه إن لسكو خلاف سيهي أيو دباشي أو نحقلي أو دراسي وتباحثوا فيها مسائل كاس نحديث أي باربارين مسائل كي أي بارتان كسميين وتناظروا ويكدودين مسائلكي صحابته وكان هدفهم هدف كود يضنتودنا وحي رضي الله عنهم الوصول الجارد للحق اللي قالوا والفوز الليبان برضا الله تعالى إلهي رال نقشديس إن لقول ليبانو حقنا اللي قالوا تاس اون أي صحابته مسائل يسوقوا خلافها ينو وكذلك سداس وكلاء الخلاف وخلاف وهذا في عهد من دول وقتيس دول كاسو بعدهم صحابة كدن بيي ومن أهل القرون قرنيالك أهل كودية قرنيال كاسو الثلاثة سدح دي قرني أو يجا صحابة كسي دن بيسي ساسو كلا يسوق خلاف جرين مسائل كعلمي ديني أي يسوق خلاف جرين في أوج ازدهار دولة ده معناه هركعة ماشي وقص الرئيسي أي dadku isku khilaafi jireen dawladaas oo islaamiyati ay islaamka loo nisbeeyay dawladaas oo fi casriha waqtiga dhexdiisa ahaatay waqtigaas oo dahabi ee dahabka ahaa xilligii dawladdu ay jiri jirtay islaamiga ah xoog badan oo meesha ugu sarreeyay dawladda islaamigu ay gaartay cilmiga waa la isla baari jiray waa la isku khilaafi jiray waa la isqancin jiray كانت البلاد بلديالك وحي هايان حلقاس مليئة مثل لقبوحية بالعلماء علماء هفكاهد مقالوينك على اختلاف دراساتهم مع اختلاف دراساتهم دراسات كودا اسخلاف كودا معي كودا أي علماء مقالوينك كبوحين وشيخان وحلقا يابا إنو آخرين هاي مذهب الشافعي كم حلقا يابا إنو آخرين هاي مذهب الإمام مالك كم حلقا يابا إنو آخرين هاي مذهب أبي حنيفة كم حلقا يابا إنو آخرين هاي مذهب الحنابلة نول بالمذهب كيسو آخرين هاي نيرنا مجرن علمي سلاس على سوق خلاف سنه أن كفوا قادوا شو ما ركتت وكانوا حياهيان علماء يطلبون العلم علمك كور هدية لله لأجل الله إلهي درتيس أي علمك أي أرهادين جرين مخلصين فيه علمك دحديسة مد كسا في قرايا نيادو ده أي هايان لا للشيء أرهادين جرين شيء قاسوا آخر كلا دن كلا أي علمك أرهادين جرين ما يسن جرين إلا علمكاس إلهي إنه آخرة كو أنفعه ربنا وقرها للنقضه مويه سبحانه وتعالى marka qof walba oo muumin ah oo muslim ah waxa laga maarmaan ah inuu goobaha cilmiga lagu akhrinayo uu dhageysto oo uu xaadiro gaar ahaan goobaha aqoonta saxiixa ah lagu akhrinayo oo dadka sunniyiinta ah ay aqoonta ku akhrinayaan iyadoo laga fogaanayo goobaha ay ku akhriyaan mubtadicadu aqaaidkooda baadilka ah oo been ahaan iyo been abuurad ay ugu magacaabeen aqaaidkii salafka دوالكاس waxaa inoogu dhamaaday darsigeennii kitaabkeennii saxiix sifati salaati nabi